ogow weligaaba iswalwaal adigu weligaaba arlada isku qaadqaad ilaahay waa kuu kaadinaya ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga waa intaasu ka soo ii soo noqda waa intaasu ka toobad keena laakiin markaad xumaanta aad ku sii socotid ilaahay wuu ku qaban hadduu ku qabtana ilaahay kuu naxariisani maayo qiso dhaba waan u taagnaa waan u joogi anigu dad badanna waxaa laga yaabaa meesha fadhiya inay garanayaan inan baa loo tegay ducaadda u tagtay waxay ku yidhaahdeen ilaahay ka cabso diintu caayaa ilaahay buu caayaa salaadda ma tukado diintu waxa uu yidhaahdaa diintu xaq ma aha saasuu odhan jiray ducaad baa u tegay waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso ilaahay u toobadkeen waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan waxa uu yidhi dhegaysta waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa ilaahayna waxaa ku sameeya haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi wallaahi alcadiim waa xaqiiqa waan u jooga anigu waa la argagaxay waa laga baxay meesha musiiba soo socotaa la yidhi inaga saara bilima soo wareegin wuu iska qoslayey wuu iska ciyaarayey baabuurkiisii buu ka haysta agsidaa buu galay meel kale rabbi kama dilin laftaa dhabarka umaa la kala jebiyey insaankan waa daciif faryarada haddii la kala jebiyey maanta o dhan insaanku uu cabaadi laftaa dhabarku ilaahay kala jebiyey qac waa la qaaday yurubtaa la geeyey waa la soo daweeyey laakiin baaradiisii dabcan dhinac baa baktiyey ma kici karayo waa la keenay waddankaa la keenay waxaa la keenay isaga oon qacmaha qaadi karayn lugahana aan qaadi karayn midna aan qaadi karayn farihiis ayaa la keenay waan u tagnay waan u naseexaynay waxaa laga yaabay inuu toobad keeno wuu hadlayaa laakiin ogow mar kaluu ilaahay caaye ilaahay baa iga sareeya qacmihiisa iyo lugihiisaasiba way urayaan lama feliisan karaysid matag waad matagi way urayaan dawooyin baa yurubta laga soo siiyey u mariyaa habeenkii markuu seexdo wax alla waxaa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo maxaanku wax alla waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan baa ku soo urura xayawaan oo dhan markaasaa qacmihiisan iyo lugaha ma dareemaya isagu waa la cunaa subaxdii markuu toosan buu arkaya intan oo la cunay lugihiisii oo la cunay wuu dhawaaqayaa saasuu u fadhiyaa waa lafihii waxay soo saarayaan lafihii bay soo saarayaan subxaan allah sidaasuu u sugnaa wuu fadhiyaa bes waa la fadhiisiiyaa waa la qaadaa dhaqaaq kale male cuntada afkaa loogu ridaa biyaha waa la waraabiyaa saas u fadhiyaa labadii bari uu ku fadhiyey ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saafuuro waaweyn dhulax ayaamidii oo laga soo saaray calooshaa loo fadhiisiiyey subaxdii walba dhakhtarka u yimaada waxbaa lagu dhaadhiciyaa waa laga soo sifeeyaa intaasay la leegin daloolku waa weyni uma fadhiisan karayo caloosha u jeefaa qurmunka ka baxaya xayawaanka jidhkiisa ku soo ururaya silica uu ku nool yahay waan u tagnay isagoo sidaa ku sugan muxuu daawanaya filmaan xun oo anshax xun buu daawanaya caloosha u jeefaa irooda wila filinka ajab yacni waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambaysay ayay ku sugnaa silic cuntadii kuma dhaadhici karayso wuxuu sidaa u ku sugnaadaba markii dambe hooyadii uu beryi jiray dadkii qaraabadiisa way ka tegey gabadhi guriga uma shaqayso gabadhii guri ka shaqaynaysa way ka tagtay waana tagayaabay tiri guriga oo dhan baa uraya hooyadii baa ku soo hadhay xataa walaalkii uu ka tegey xataa walaalkii
u ka tegay wuxuu beri jiray qofka u yimaada walaal iga nax maxaan kuu qabtaa idaldal idil nafta iga qaat inaan dhinto ayaa ii dhaanta noloshana ku noolaa xaaladaasoo ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool budhans maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta